بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه الأمين محمد بن عبد الله أما بعد إخوة الأعزاء مركلة waxaad ku soo dhawaataan cashirkeennii shanaad oo ka hadlaya fahamka siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaan horey usoo qaadanay duruus ka hadlayay nabiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisii ilaa waktigii uu dhalinyarta weyn ahaa ama ninka weyn uu soo noqday, waxyaabihii uu qaban jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo akhlaaq wanaagiisii. waxaan maanta qaadanaynaa oo darsigan uu ka bilaabanayaa bilowgii lagu bilaabay nabiga calayhi salaatu wasalaam, waxyiga iyo qaabku u yaalay iyo nabigu wuxuu dareemay calayhi salaatu wasalaam iyo tilmaamihiisii iyo sifooyinkii uu lahaa waqtigii risaalada ilaahay uu dhiibay. waxaan soo qaadanaynaa xadiis saxiixa oo imaamu lbukhaari uu bixinayo. xadiiska markii aan soo qaadanay aan akhrino aan macnihiisa fahano, kadibna waxaan ku laaban doonaa insha allahu tacaala fahamka aan ka qaadanayno xadiiskan macaanidiisa. xaaskii nabigeena calayhi salaatu wasalaam caaisha bintu abi bakar, caaisha waxay tiri nabiga calayhi salaatu wasalaam shaygii koobaad ee lagu bilaabay xagga waxyiga, markii koobaad ee waxyiga lagu bilaabayay nabiga calayhi salaatu wasalaam, shaygii koobaad ee ku bilowda wuxuu ahaa ru'ya saadiqa fi nnowm. markii koobaad ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu wax u sheegayay oo qur-aanka lagu soo dejinayay oo waxyi lagu soo dejinayay, ashyaadii koobaad ee lagu bilaabo waxay ahayd waxyi ayuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam. wuxuu ahaa manaam buu ahaa manaam. waxay leedahay nabigu calayhi salaatu wasalaam uu seexan jiray. markuu seexdo wuxuu arkayaa manaam buu arkayaayoo jiifka ayuu wax ku arkayaa. markuu manaamkaa arko, markuu hurdada ka soo kaco dadka ayuu u sheegaa. dadka markuu u sheegana shaygii uu arkay siduu u sheegay unbuu u iman jiray un. waxay ahayd waxyaabo dadku ay la tacajubi jireen oo nabiga calayhi salaatu wasalaam arrimihii la yaabka lahaa ee lagu arki jiray ka mid ahaa in qofku intuu seexdo oo manaam uu arko, manaamku siduu ahaa iyagoon waxba iskhilaafin ay yimaadaan. waxay ka mid ahayd dhaqankii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo waxyiga qeybtii koobaad ee lagu bilaabay. waxay tidhaahday arrintaa markay nabiga ku bilaabatay calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaaday in bulshada uu ka dhex baxo oo meel cidla ah uu tago iska cibaadaysto. wuxuu tegi jiray tidhaahday marka buur la dhihi jiray ama meel la dhihi jiray khaaru xiraa ayuu nabigu tegi jiray calayhi salaatu wasalaam. intuu iska galo ayuu iskaga cibaadaysan jiray isagoo meeshii ku jira. marka wuxuu samayn jiray, wuu tegi jiray, maalmuu joogi jiray. markuu saadku ka dhammaado wuu soo laaban jiray, wuxuu qaadan jiray sahay buu qaadan jiray, meeshii buu tegi jiray, wuu ku cibaadaysan jiray. isagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadku waxay ku arki jireen ay soo badanayaan oo waxyaabihii waagii hore lagu arki jiray khawaariqul caadada ah ay soo siyaadayaan, ayuu markan wuxuu samaynayaa inuu bulshadii leydba ka dhex baxo nabigu calayhi salaatu wasalaam. duur cidlaa intuu tago meesha inuu iskaga cibaadaysto, markay sahaydu ka dhammaato uu soo laabto, xaaskiisu yimaado, raashin uu qaato, halkiisuu ku laabto. arrintaasuu bilaabay ti nabigu calayhi salaatu wasalaam. isagoo sidii iskaga cibaadaysta ayaa waxaa u yimaaday bay tiraahday maalintii koobaad malag baa u yimaaday. isbedel baa dhacaya. rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxay waqtigan ka horeeyay manaam buu arki jiray. saacadan laakiin wixii ka dambeeya isbedel baa dhacayo, malaa'igtii ilaahay baa la soo dirayaayo si toos ah ayuu allah subxaanahu watacaala mucallim qur-aanka bara oo waxyiga u sheega oo wax u gudbiya oo allah subxaanahu watacaala risaaladiisa u gudbinaya ayaa loo soo diraya. markaase waxay tidhahdeen malag baa u yimaaday. markii koobaad malag baa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam. malagu markuu u yimaaday amar buu saaray nabiga calayhi salaatu wasalaam. amarkaasoo ahaa iqro, akhri ayaa nabiga lagu yihi calayhi salaatu wasalaam. waa nin dhalinyaro ah, 40 jira,
allah subxaanahu watacaala qalbigiisa xigmad uu ku beeray meel cidla iskaga cibaadaysanaya, markaasaa amar la saaraya, malag baa intuu u yimaado uusan aragba weligii oo usan aqoonin ayaa haddana waxaa la leeyahay iqra, malaggiibaa amar haddana saaraya. markaasuu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam, maxaan akhriyaa? oo istifhaam laga dhigo. ama wuxuu yidhaahday anigu waxaan akhriyaba ma garanayo. ila nabigeena calayhi salaatu wasalaam tilmaamihiisa waxaa ka mid ahayd umminimo ayaa ka mid ahayd oo waxyaabaha meelaha ku qoran ma uusan akhrin jirin, wixii isaga loo sheegana ma uusan qori jirin. ceebna kuma ahayne waxay ahayd mucjiso xoojinaysay waxyigiisa iyo risaaladiisa xoojinaysay iyo nebinimadiisa. markaasuu yidhahda anigu waxaan akhriyaba ma garanayo. kadib buu haddana wuxuu yidhaahday, marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii malaggii intuu qabtay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu waxoogaa cadaadiyey, cadaadis buu ku sameeyey. cadaadiskii buu kasii daayey, muxuu yidhahday akhri. markaasuu maxaan akhriyaa? ama waxaan akhriyaba ma garanayo. 3 jeer markii saa lagu yidhaahday ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo meeriyey aayaddii ugu horeysay ee qur-aanka soo degta oo lagu cadaynayay nebinimadiisa nabigeena calayhi salaatu wasalaam. waxaana markaa la yidhaahday iqra bismi rabbik, iqra bismi rabbik alladii khalaqa alinsana min calaq. aayaddaasaa nabiga loo meeriyey calayhi salaatu wasalaam. ilaa waxaa loo beeriyey callama alinsaana maa lam yaclam. intaasaa nabiga loo meeriyey calayhi salaatu wasalaam oo macalimkiisii koobaad wuxuu ka qaatay aayaddaasuu ka qaatay isagoo meel cidlaa jooga. markii nabigu calayhi salaatu wasalaam aayaddaa u qaatay uu soo laabtay, ilaan isbedel badan isagoo dareemaya. isbedeladan badan uu dareemaya maxay ahayd? qof hore intuu ugu yimaado yidhaahda wax akhri muusan arki jirin nabigu calayhi salaatu wasalaam. malaa'ig socotana ma aysan u iman jirin. mararka qaarkood waan soo qaadanay isagiioo markaa qalbiga laga qalayo cunug yar ahaa, laakiin malag amar saarayo oo qur-aan u sheegayo oo waxyi u sheegaya muusan arki jirin nabigu calayhi salaatu wasalaam saacadda ka hor. wuu soo laabtay isagoo aayadihii yaqaana, wuxuuna u yimaaday khadiija ayuu u yimaaday iyo gurigiisii, isagiioo markaa wuxuu la kulmay isbedelkii uu ka muuqda nabiga calayhi salaatu wasalaam. ila nabigeena calayhi salaatu wasalaam kaana bashara min albashar, wuxuu ahaa qof basharka ka tirsan buu ahaa, oo laakiin ilaahay uu karaameeyo risaalo la siiyey oo ilaahay uu doortay oo yacni waxyigiisa u doortay oo la aaminay, loo aaminayna koonka inuu diinta gaadhsiiyo ah. laakiin dabeecooyinkii basharka uu lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam, waxyaabihii ku cusbaa iyo isbedeladii dhacayay iyo malagii u yimaadee cadaadiska saaray iyo waxa uusan akhrin jirin ee la yidhaahda akhri darteed isbedel baa muuqday markuu gurigiisa imanayay nabiga calayhi salaatu wasalaam. wuxuu u yimaaday marka xaaskiisii caqliga badnaa ee khadiija la dhihi jiray ayuu u yimaaday. markaasuu wuxuu yidhaahday hala iduuduubo, soo qaata go-e iduuduubo buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam. zammiluunii zammiluunii, hala iduuduubo hala iduuduubo ayuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam. markaasay duuduubeen. marka khadiijo u warramo wuxuu yidhaahday wallaahi laqad khashiitu calaa nafsi ayuu yidhaahday. yacni arrimihii uu arkay, malagii uu arkay iyo qur-aankii loo meeriyey iyo malaga cadaadiskiisii iyo wixii uu arkay ayuu suureynayay nabigu calayhi salaatu wasalaam. markaasuu yidhahday khadiijo wallaahi naftaydan maanta waa cabsaday buu yidhaahday. markaasay tidhaahday khadiijo waxay ahayd qofuu ilaahay doorto caqli uu siiyey. waxay noo cadaynaysaa dumarka qaybo kamida qiimaha ay leeyihiin iyo khadiijo qofnimo shakhsiyadeeda qiimihii ayadu ay lahayd ayay noo cadayn. way dhaarato waxay tidhahdaa wallaahi baan ku dhaartay ilaahay inuusan marna ku hoojinaynin. way cilaysay sababta ilaahay uusan rasuulkan u hoojinaynin, nabiyullaahi maxamed uusan u hoojinaynina cilaysay. waxay ku tidhaahday
adigu asbaabta ilaahay uusan kuu xoojinaynin dadka culayska dareemaya culayskaad ka xambaartaa. taxmilu lkalla, culayskaad xambaartaa bay tiraahda. oo culayskaad xambaartaa maxay ula jeedaa? dadka culaysku haysto, dhibaatooyinku ay haystaan ayaad u qumtaa arrimahooda oo wanaag baad ka shaqaysaa. waxaad kale samaysaa dadku waxyaabaha ay waayaan aysan haysanna waad u shaqaysaayo waad u gudbisaa. dadka martida ah waad karaamaysaayoo waad shariftaa. had iyo jeer xaqa ashyaada imanaya wixii xaq ahna waad garab istaagtaa bay tiraahday. marka saan kugu naqaanay yaraantaadii iyo dhaqan ahaan iyo akhlaaq ahaan intaan kaa haysanay wanaag baad ku sifowday. qofkii wanaag ku sifoodana ilaahay guuldarro ma gaadhsiiyey tiraahday. markaasay soo kaxaysay nabiga calayhi salaatu wasalaam, waxayna u keentay markaa bal nabigu waxaan uu dareemayo iyo waxyaabaha loo sheegay si ay cilmi uga siyaadsadaan. waqtiga ay joogeen oday weyn oo joogay oo taariikhyahan ahaa oo diintii nasaarada iyo tii yahuudda iyo waxyaabo badan soo arkay ayay nabiga u geysay calayhi salaatu wasalaam. markaase waxay ku tiraahday, ninkan waxaa la dhihi jiray waraqat bnu nawfal ayaa la dhihi jiray. waxay ku tiraahday, bal waxaad dhegaysataa wiilkani waxa uu ku dhaho, bal dhegayso, bal ka dhegayso warka. markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam si degan wuxuu uga sheekeeyey waxyaabihii uu la kulmay. ninkii waraqa ayuu arintii uga sheekeeyey. markuu arintii uga sheekeeyey odaygii waraqa ayaa wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, wallaahi arinta aada sheegaysid waa khayr, waa naamuus, waa khayr wade ayuu yidhaahda. waa khayr wade. ereyga wuxuu cabiray naamuus. zamanku hadduu i gaadhsiin lahaa waqtiga ilaahay ku soo saarayana waan ku raaci lahaa buu yidhaahday. oo odaygu markaa wuxuu caddeeyey diintii nasaarada iyo adyaamihii hore wax ka yaqaanay. wuxuu ogaaday waxaan rasuulka u yimi calayhi salaatu wasalaam ee malaga iyo waxa loo sheegay inuu yahay wadadii waxyiga inuu rasuulku cagta saaray oo rasuulkii la sugayay ee kitaabtii hore sheegayeenba inuu nabiga yahay calayhi salaatu wasalaam. taasuu caddeeyey odaygii diimaha hore ka haystay. wuxuuna ku yidhaahday haddii lagu soo saari lahaa anoo nool waan ku taageeri lahaa, waana ku xoojin lahaa ayuu yidhaahday. wuxuu markaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam odaygani uu caddeeyey waxaanu wato inay xaq yihiin. marka la soo saarana beledkiisa laga saari doono oo lagula dagaalami doono xaqa. markaasuu yidhaahday, oo dadku miyay isaarayaanoo ma beledkii aniga aan u dhashee makaa laga bixinaya? markaasuu yidhahday, haa, nin arintaad la timaaday ee wanaagga ah ee qiimaha ah la yimaaday ma jirin oo ambiyadii hore ka mid ah ilaa waa lala dagaalami jiray buu yidhaahday. cadaawad baa loo qaadi jiray, waana lagula colaytami jiray. qisadan marka walaalayaal waxay ahayd waxyigii koobaad ee nabigeena ku bilowda calayhi salaatu wasalaam. waxaa marka qisadani ay noo faa'iideynaysaa oon ka qaadanaynaa in qofka mu'minka ah laga rabo in uu samaysto saacado allah subxaanahu wa tacaala uu la khitaabo, saacado ilaahay uu la munaajoodo, saacado uu duurka galo, saacado uu qol cidla galo. waqti uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la khitaabo inuu samaysto inay sunno tahay ayaan tan ka qaadanayna. meesha aan ka qaadanaynana waxa weeyaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii maxabada ilaahay iyo cibaadada qalbigiisa ay ku weynaatay wuxuu galay duurkuu galay. allah subxaanahu wa tacaala buu la khitaabi jiray. wadada waa wadadii saalixiintii iyo salafkii qaybo kamidoo badan ay samayn jireen oo khalwaad bay geli jireen, waa khalweyn jireen. qofka waxaa la rabaa marka naftiisa inuu xisaabiyo. basharka marka la fiiriyo waa laba qaybood. qayb dadku markay u jeedaan bay cibaadaystaan
maca aljamaaca la tukanaya, dadkii jamaacadii baa lala tukanaya, markay ducaysanayaan bay ducaysanayaan, intay dadku soo jeedaan ayay salaada tukadaan oo cibaadaystaan. qaybana intaa intay sameeyaan ayay cibaadada macaankeeda iyo munaajaadka la hadalka Allah subxaanahu wa tacaala lala hadlayo, toogmada ilaahay la tuugayo, ilaahay tabaruca loo tabarucayo, ilaahay isu dhiibitaanka la isu dhiibayo, waxay door bidaan inay saacado gooni ah u helaan oo markaa naftoodu ay raaxo dareento khaaliqii ayada abuurtay naftaada ay markaa la khidaabaan. qadcadaas waxaan ka qaadanaynaa marka xadiiskan baan ka qaadanaynaa qofku inuu samaysto saacado Allah subxaanahu wa tacaala uu la munaajoodo oo uu la hadlo oo uu tuugo oo uu baryo oo uu isu dhiibo arrimihiisa oo dhanba uu gacanta ilaahay u saaro. waxyaabaha kale aan ka qaadanayna waxa weeyaan walaalayaal, waxyiga markii nabigeena lagu bilaabay calayhi salaatu wasalaam, shayga koobaad ee la amro wuxuu ahaa iqra. qofku markuu rabo inuu wax barto waa inuu sameeyo wax la yiraahdo alqiraa'a. aadanuhu markii meelaha ay wax ka dareemaan ama ay wax ka bartaan waa carabka inay wax ka akhriyaan, waa inay dhegtii wax ka dhageystaan, waa inay ishi wax ka fiiriyaan, waxyaabahaas oo dhan baa la sameeyaa. laakiin macluumaadka ugu badan waxa lagu helo waxa weeyaan alqiraa'a. qofku inuu wax akhriyo, qofku inuu kitaabtii akhriyo, qofku qur-aanka inuu akhriyo, axaadiista akhriyo, waxa ay aadanuhu qoreen oo dhan inuu akhriyo. macluumaad badan baa lagu helaa, waana midda ku tusinaysa nabigeena calayhi salaam shaygii koobaad la baray inuu ahaa inuu wax akhriyo. taa waxaana tusinaya walaalayaal, ilmaheena yaryarka markaan tarbiyeynayno, ilmaha yaryarka ee dugsiyaasha loo dirayo qur-aanka ee iskuulaadka loo dirayo, waxaad ogaataa meesha koobaad ee waxbarashadu ay ka bilaabato waxa weeyaan qofka ha u dirin baseeta waxaan soo xifdi. waa inaad marka koobaad qofka bartaa qaabka wax loo akhriyo, waa inaad aasaaska ka dhistay oo ah alkitaaba walqiraa'a. waana waxyigu meeshuu ka bilowday nabiga calayhi salaatu wasalaam in la yidhahdo wax akhri. qofku markuu wax akhrin karo ee wixii meel ku yaalla uu akhrin kara, qirada awoodda lagu saaro, waa in la yidhaahdaa horay u soco, la baraana guusha in lagu gaadho inuu qofku wax akhriyo had iyo jeer. waa waxa nuqdada labaad aan ka qaadanayno siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam, gaar ahaan waxyiga bilowgiisii. nuqdada kale ku xigteen ka qaadanayna waxa weeyaan shayga koobaad ay waajibka tahay qofku inuu barto muxuu yahay. aadanaha shayga koobaad ee ku waajibaya muxuu yahay? waa macrifatu llah, waa Allah subxaanahu wa tacaala inuu barto. oo Allah subxaanahu wa tacaala nabigeena markii shay ayaddii koobaad la meyrinayay, ma salaad baa loo diray, ma zakaa loo diray, ma mucaamalaad baa loo diray? kallaa wa alfu kallaa. shayga koobaad ee loo diray waxay ahayd in la yidhahday iqra bismi rabbik. markaasaa la yidhaahday waa rabbigee khalaqa alinsaan. sii wad. Allah subxaanahu wa tacaala tilmaamihiisii baa la baray. waxaad akhrisaa baa la yidhahda ilaahay magaciisa akhri, magaca ilaahay akhri, oo shay kastaad akhrinayso bisinka ku bilow. waa allehe, waa allihii abuuray oo aadanaha abuuray oo baray wuxuusan aqoon. Allah subxaanahu wa tacaala baa kow la baray nabiga calayhi salaatu wasalaam. shayga koobaad ee marka qofka ay ku waajibayso inuu barto, waxyaabaha la barto ka koobaad ee la barayo waxa weeyaan waa Allah subxaanahu wa tacaala. waxaan waalidiinta aan ku dhiirigelinaynaa oo qof kasta mu'mina aan ku dhiirigelinaynaa in dadka la baro khaaliqii ayaga abuurtay oo aadanaha lagu xidho makhluuq khaaliqii abuuray, makhluuqa in lagu xidho khaaliqii abuuray. shayga koobaad ee waajibaya waa macrifatullah, waa ilaahay in la barto subxaanahu wa tacaala. oo aayadda ay noo cadaynayso koobaada nabiga la baray calayhi salaatu wasalaam. nuqdada labaad ee siirada qaybtan aan ka qaadanayna saddexaad ama afraad ama ku xigteen ka qaadanayna qaybtan waxaa ka mid a qofku markuu wax akhrinayo inuu bisinka ku bilaabayo. ilaan maxaa la yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam iqra bismi rabbik. qur-aankii baad rabtaa inaad akhrisid, waa inaad bisinka ku bilowda. waxbaad rabtaa inaad akhrisid, waa inaad bisinka ku bilowda. shay kasta waa in lagu bilaabaa bisinka oo wanaagsan oo ilaahay loogu dhowaanay. aayaddu saasay noo faa'iideynaysaa. qur-aanka markaan aayad suurad kasta akhrinayno waa inaan bisin ku bilownaa. albasmala waa inaan dikriga ilaahay, magaca ilaahay aan laasimnaa. nuqdada ku xigta ee ka qaadanayno
siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam gaar ahaan waxyiga bilowgiisi waxaa ka mid ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii koowaadee malagu uu la xidhiidhayay wuxuu ku sameeyey wax la yidhaahdo daqdi wuu cadaadiyey wuxuu yidhahda wax akhri haddana wuu cadaadiyey wuxuu yidhi wax akhri haddana wuu cadaadiyey cadaadiska xigmadda laga lahaa maxay tahay xigmaddan walaalayaal cadaadiskan laga lahaa waxa weeyaan qofku markuu wax baranayo waxbarashadu mushkilaad bay leedahay waxbarashadu dhib bay leedahay waxbarashadu culays bay leedahay waxaa markaa tacliim la siinayay ah wax kasta ee qofku uu baranayo inuu dhib ka horeeyo waxbarashadu iyo qiimuhuna inuu ka dambeyn doono waxay taana tusinaysaa qofku markuu wax baranayo waan raaxaysanaya sariirtaan seexanaya anoo jiifo oon dhib dareemin oo kaas aho cunto cuna wax kasta helayaan wax baranaya kala taas waxbarasho laguma gaadho waa rasuul ilaahay isagoo rasuul ilaahay ah ayaa haddana malagii loo soo diraa cadaadinaya cadaadiskaasi wuxuu ku tusinayaa waxbarashadu waxay leedahay caqabaad bay leedahay dhibaatooyin bay leedahay dhibaatooyinka qofku aanu ka tallaaba wakadalika nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu waxyigu kusoo degayo waad ogtahin wuxuu dareemi jiray culays badan buu dareemi jiray isagoo rasuul ah oo ilaahay addoonkiisii ah oo ilaahay u naxariisanayo oo aayado lagu soo dejinayo iyo haddana caasho markay ka sheekeynaysa waxay tidhaahday subax qabowgoodu aada u daran yahay markuu qur-aanku kusoo degayo culayska uu dareemaya dartii dhidid baa nabiga ka socon jiray calayhi salaatu wasalaam waxaasoo dhan ilaahay awood wuxuu leeyahay addoonkiisan wanaagsan inuu qur-aanka baro isagoon rafaad dareemin isagoon dhib dareemin isagoon culays dareemin isagoon cadays dareemin laakiin yaa la tababarayaa innagaa waxaana lagu tababarayaa markaan rabno inaan guul gaadhno oo waxbarashada heer aan ka gaadhno waa inaan dhib marna imaamkii weynaa xikam ibnu caطaa'illaah kitaabkiisa xikamkaa markuu ka hadlayay waa meeshuu yidhaahday man lam takun lahu bidaaya muxriqa lam takun lahu nihaaya mushriqa cibaaradaas ayuu yidhaahday ama cibaaro ka agdhow wuxuu yidhaahday qofkii aan soo marin gubasho qofkaan dhib soo marin markuu wax baranayo qofkii aan soo rafaadin ma gaadhi karo ayuu yidhaahday dhammaad iftiin leh oo ifaya ma u gaadhi karo nuqdada marka waxaan ka qaadanaynaa cadaadiskaas yar ee nabiga lagu sameynaya calayhi salaatu wasalaam waxbarashadu inay dhib leedahay dhibkaa wuxuu u baahan yahay marka in qaab xigmadaysan looga gudbo oo qofku uusan dhibkan caqabadan uusan hor istaagin derbigan inaysan waxbarashadii ka hor istaagin derbigan inuu ka tallaabo ee u fiiriyo hadafka uu leeyahay iyo meesha uu gaadhaya waa inuu fiiriya ma ka qaadan karaa ilmaha yaryarka qur-aanka la barayo waa la garaacayaa mise kama qaadanayno yaa akhi ilmaha yaryarka ah ee qur-aanka markay baranayaan la garaacayo diinteennu kuma saxna tarbiyadu ma aha tallaabada koobaad in la garaaco ma aha tarbiyadu ma aha tallaabada labaadna in la garaaco ma aha ta saddexaadna in la garaacana ma aha bal nabigeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiis صaxiixa man lam yarxam صagiirana walam yuwaqir kabiirana falaysa mina wuxuu yihi qofkii ilmaha yaryarka aan u naxariisan dadka waaweynna aan xurmayn oon qiimayn oon sharfin naga mid ma aha buyi nabigu calayhi salaatu wasalaam laysa fii siiradeenna iyo sunnadeenna iyo dhaqankeenna iyo xadaarada diinta islaamka kuma sug buu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam idan kayfa natacaamul si aanu la tacaamulayna ilmaha yaryara markaan qur-aanka barayno waa inaad barataa asaaliibta ilmaha yararka loo mashquuliyo wax loo baro loo gaadhsiiyo hadafkooda haddaad aaminsan tahay ul keliba wax lagu gaadhsiin karaa cadaab baa wax lagu gaadhsiin karaa adeer diinteenu diin cadaab ma aha diinteenu diin cadaab ma aha dhibaato ma aha waa diin naxariiseed waxay leedahay asaaliib dacwada loo guto ilmaha wax loo baro asaaliibtaa baro ta lagama qaadan karo cunug yar baa la cadaabaya la dhibaataynaya sababtoo nabigu calayhi salaam 40 jir buu ahaa cunug 5 sano jira iyo mid 7 sano jira oo la cadaabayo dhibaato loo geysanayo qisadan looma daliishan karo
qisada waxa loo daliishan kara waxa weeyaan qofku markuu wax baranayo inuu dhibaatooyin marayo dhibaatooyinkan ay u baahan tahay qaab xigmadaysan in looga tallaabo. waxaan kale qisadan ka qaadanaynaa qofka mu'minka waxaa laga rabaa inuu noqdo naamuus, inuusan noqon jaajuus. waa laba eray oo iska soo horjeeda. naamuusku waxa weeyaan waa khayr wade. waxaa la yidhaahdaa qofka had iyo jeer khayrka dadka ka qarsoon u gudbiya yaa naamuus la yidhaahdaa. sida jibriil oo kale calayhi salaam. jibriil muxuu sameynayay? dadku ma waxyi bay yaqaaneen, ma qur-aan bay yaqaaneen? maya, khayr qarsoona ayuu nabiga u sheegi jiray calayhi salaatu wasalaam. waxyaabaha khayrkee wanaagsan ayuu gudbin jiray. nabiganuna sidoo kale naamuus buu ahaayo isna waxyigii loo sheegay oo dadka ka qarsoonaabuu u gudbin jiray. adigu marka waxaa laga rabaa inaad noqotid naamuus, khayr wade, khayr faafiye, diin faafiye, khayrka qof had iyo jeer faafiye inaad noqotaa laga rabaa. jaajuus yaa la yidhaahdaa. jaajuus waxaa la yidhahdaa kan cagsi baa la yidhaahdaa. waa dadka arrimahooda qarsoon qofka fiirfiiriya, ceebtooda baadha, xumaatooyinkooda baadbaadha, markuu baadbaadhana dadka usii gudbiya. wax qarsoonaa qof gudbiyo shar ah, jaajuus buu noqonaya. gaaladii ha u gudbiyo, muslimiinta ha ka gudbiyo, ayaga dhexdooda ha iskaga gudbiyo. shay shar ah oo qarsoon, shay shar ah oo qarsoon qofka intuu qaado dadka dhexdooda ku faafiya, jaajuus baa la yidhaahdaa. nabigu calayhi salaatu wasalaam nahyi weyn ayuu ka fuliyey. taa lama ogola. marka qaybtan waxaan ka qaadanaynaa inaan noqono qof kasta inagana mida khayr wade, waxa wanaagsan ee qarsoon mid dadka u gudbiya, waxa xun ee ceebaha dadka ah in laga hadho oon jaajuus la noqon. intaasaan rabaa inaan uga baxo cashirkaanii shanaad ee ka hadlayay sideed naftaada ula dhaqmaysaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.